madaxweynaha Soomaaliland ayaa maanta socdaal waxa uu ku soo gaaray magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Socdaalka madaxweynaha ayaana daran ka qaybgalka xafladda qalinjabinta jaamacadda Amuud taasoo maalinta bari ay qabsoomi doonta. soo dhaweyn kooban ayaan madaxweynaha waxa loogu sameeyay degmada Dilo oo barbilowga laga soo galay deegaanada gobolka Awdal. Odayaasha dhaqanka shaqaalaha dawladda mas'uuliyiinta xukuumadda ku matala ayaana sii taagay dariiqa kuwaas oo ruuxayay calanka Soomaaliland iyo sidoo kale astaamaha sawirada madaxweynaha Soomaaliland. Marka laga yimaado in madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro uu ka qayb galay xafladda qalinjabinta jaamacadda Amuud, ma jirto mashruuciye guuleystay oo madaxweynuhu xadhiga ka jari doono. taasi bedelkeega waxa uu kulan ballaaran u la qaadan doona madaxda dhaqanka gobolka Awdal, kuwaasoo la filayo in madaxda dhaqanku ay ku garnaqsanayso markaan ay soo bandhigaan tabashooyinka ay ka qabaan xukuumadda madaxweynuhu soo dhisay iyo sidoo ilaa iyo hadda gobolka Awdal uga aradan yahay kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka airportka dekedaha iyo sidoo kale ilaha muhiimka. dhanka kale madaxda dhaqanka ayaa la filayaa inay ka dhageystaan madaxweynaha waxyaabaha xilligan uu siido gobolka Awdal, waxaana si weyn insha loogu wadahayaa kulankaasi uu la qaadanayo madaxda dhaqanka iyo waxyaabaha ka soo bixi doona. وعمران حسين آدن ورقة تلفزيون KMM TV بورما.